idil haantiba kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada warka Qool Media TV qodobada warkeedu ku haynana waxaa kamid ah xogayaa guud ee qaramada midoobay oo ka hadlay xaaladda gobolka Gado Somaliland oo si adag uga hadashay kiisaska coronavirus laga helo deegaanadeeda oo ay sheegtay inay sheegato wasaaradda caafimaadka Soomaaliya wadahadal u socday madaxweynaha maamulka Puntland iyo ku-xigeenkiisuna waxa ay ku soo ilaadeen natiijo la'aan intaas waa qodobada aad warka ku daawan doontaan imika haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlay xaaladda gobolka Gado ayaa sheegay inuu si xoogan u cambaaraynayo dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolkaas ee u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland Antonio Guterres ayaa sheegay in ciidanka ay dawladda Soomaaliya bishii Febraayo ay geysay gobolka Gado ay sababtay isku dhacyo iyo xiisado dagaal oo hor leh sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaaladii u dambeeyay ee dhexmaray labada ciidan ay waxyeelo ka soo gaadhay dad badan oo shacab ah kuwaas oo ay sababeen in kuwa kalena ay ka barakacaan deegaanadooda waxaana uga walaacsanahay isku dhacyada hubeysan ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee ka dhacay gobolka Gado kuwaas oo sababay khasaare iyo barakac dad shacab ah ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa kale oo ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa Jubbaland inay joojiyaan xiisada ka jirta gobolka koonfureed ee Soomaaliya iyo guud ahaan koonfurta dalka Antonio Guterres ayaa sidoo kale la filayaa in mowqifkiisa ku aadan xaaladda cakran ee gobolka Gado uu ku cadeeyo khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu dambeyn xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay heshiisyadii dhawaan laga gaadhay khilaafaadkii ka dhashay doorashooyinkii ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Dhuusamareeb ee maamulada Jubbaland iyo Galmudug ee gudaha dalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe aysan ku qanacsanayn fila Soomaaliya oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya Xaashi iyo Mursal oo muuqda kuwa gudanaya waajibka saaran isla markaana doonaya inay ka dhowrsadaan eedo iman kara haddii ay dib u dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa bilaabay inay muujiyaan mas'uuliyadda baarlamaanka ee doorashada Soomaaliya iyo doorka weyn ee ay ku leeyihiin labada gudoomiye ayaa bilaabay nooca doorasho ee dalka ka qabsoomi karta ay kala tashtaan xisbiyada mucaaridka halka ay dhawaan kulamo la yeelan doonaan madaxda dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya waxaana kadib loo filayaa in baarlamaanku go'aan ka soo saaro hanaanka doorasho ee Soomaaliya sidoo kale xogtaan helayna ayaa sheegaysa in saraakiil ka tirsan fila Soomaaliya ay gudoomiyaasha ka dalbadeen in baarlamaanku ka fikiro sidii dib loogu dhigi lahaa doorashada Soomaaliya taasina ay diideen labada gudoomiye iyagoo cadeeyay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoomi doonto xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha ayaa qaba damac muddo kordhin ah iyagoo sabab ka dhigaya xaaladda COVID-19 iyo arrimo kale inkastoo aysan weli banaanka u soo bixin rabitaankaas balse waxa diidan mucaaradka iyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ay saaran tahay mas'uuliyadda ugu weyn ee doorashooyinka Soomaaliya ee dhamaadka sanadkan 2020 xukuumadda Somaliland ayaa si adag uga hadashay kiisaska coronavirus ee deegaanadeeda oo ay markasta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ku darsato liiska kiisaskeeda ee laga helo gudaha wadankeeda Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Yurub Abiib Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in dawladda federaalku ku koobnaato deegaanadeeda maadaama ay Somaliland tahay dawlad madax bannaan waa sida ay hadalka u dhigtay wasiiradda ayaa wax lala yaabo ku tilmaamtay warbixinta maalinlaha ay wasaaraddu soo jeediso isla markaana ay ku soo hadal qaaday Somaliland oo ay sheegtay in Somaliland tahay qaran ka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale Yurub ayaa wasiiradda caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abuukar Nuur uga digtay in mar dambe soo hadal qaado Somaliland sida maamulada kale ay uga warbixiso maadaama ay xilli hore kala go'een Somaliland iyo Soomaaliya wadahadallo muddooyinkii u dambeeyay socday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa ku soo ilaaday natiijo la'aan wadahadalladan oo ahaa mid lagu xalinayo khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa
ayaa waxaa garwadeen ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Ilo xogayaal ayaa waxay sheegayaan in labada mas'uul midba ku adkeysanayo go'aankiisii hore oo uusan jirin bitanaasul sameynaya si loo soo afjaro khilaafka, taasoo keentay inuu noqdo mid aan natiijo wax ku ool ah ka soo bixin. Khilaafka labada mas'uul ayaa bilaabmay sidaan wararka ku helnay 14 bishan May, taasoo ka dhalatay isbedel uu ku sameeyay madaxweynaha Puntland taliyay ciidanka madaxtooyada ee maamulkaasi. Wuxuuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka Puntland in aan arrintaas lagala tashan, isla markaasina wuxuu ku tilmaamay tallaabadaasi waxba kama jiraan. Intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa warka Qowl Media TV. Tan iyo intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.